xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ayaa maanta ku qabatay magaalada Muqdisho dood ku saabsan doorka culimada Ahlus Sunnah wal Jamaaca ay ku leeyihiin amniga Soomaaliya waxaana ka soo qayb galay wasiiro ka tirsan xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale culimada diinka Ahlus Sunnah wal Jamaaca iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxa halkaas ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Saciid Jaamac Ali Qorsheel maanta runtii arrintan waa arrin aad u fiican mahadna waxa iska leeyahay baaskal talabaad waxaan anagu xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed ay tahay arintayadu inaan wax xad iyo shar ifino inaan isku xirno talooyinka loo baahan yahay inaan soo jeedino inta waxaan rabnaa inaan booliiskii iyo maxay ahayd culimadii ay isbartaan wada shaqeeyaan amniga guud kulligeen baa maartay dan inoo tahay dhanka kale culimada diinka Ahlus Sunnah wal Jamaaca oo iyaguna goobta ka hadlay ayaa sheegay inay dawladda federaalka Soomaaliya kala shaqeynayaan sidii wadanku amni u noqon lahaa Soomaaliya askar iyo America iyo Uganda iyo dadku waa dhameeyeen umada badan la jooga ama noo keenay waayeen ama xagee jiraan marka doorka koow iyo labo Ahlus Sunnah iska dawlad kasta waxay awood ku leedahay ashyaada asbaab waxa kamida la talin waxaanu ku sharafoonay bikalaam Ilaahi Ta'ala Ilaahi ya ummadan amaanay amaala is amaanaha waxa ugu sareeya amaanta Allah subhanahu wa ta'ala adoomadiisa uu amaano shacabkii Soomaaliyeed ama dawladii Soomaaliyeed ama mas'uuliyiinta dhamaan inaan ugu baaqno inaan Ilaahay u toobad keeno marka ugu horeyso Ilaahay sidii nooga dulqaado dhibaatadan horta waxay u baahan yihiin jamaacadka iraabiyiinta in la qeexo jamaacooyinka argagixisada oo wadanka jooga in la qeexo oo la ogaado waayo jamaacadu waxa laga yaabaa maanta dadku inay al-shabaab oo dadka dilay oo qarxinay kaliya ka fikirayaan laakiin jamaacooyin kale oo iraabiyiin oo wadanka ka shaqeeyay inay jiraan aan cid ku fikirayno oo degmooyinka jooga oo masaajidada qaar haysta saraakiil ka socotay taliska booliska iyo sidoo kale wasaaradda amniga ayaa iyaguna ka hadlay waxa ayna culimada ka codsadeen inay kala shaqeeyaan xoojinta amniga Soomaaliya waxaan culimadu wadooka ugu weyn ee ka qayb qaadan kara sugidda amniga bulshada taasoo dan u wada ah dhammaan dadweynaha nooc kasta ay yihiin anagu waxaan booliis waxaan hariyaabeen u taaganahay sidaan u allahayn nafta iyo maalka ninkas qofka Soomaaliga gabagabadii wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo awqaafta ee dawladda federaalka Soomaaliya Cismaan Dhuubow iyo sidoo kale wasiirka dastuurka ee dawladda federaalka Soomaaliya Xoos Jibriil ayaa soo xidhay iyagoona wasiiradu ugu baaqay culimada inay kala shaqeeyaan dawladda sidii dalka amni waara loo gaarsiin lahaa marka waxaan rabaa inaan sheego xaruntan kala soo jeedinta inay tahay siyaasad cusub oo Soomaaliya ku soo biirtay hadda hore u naqaanay dawlad jirto iyo mucaarad meel taagan oo intaas raadiyaasha iskala hadlayaan hadda waxaa noo soo baxday inay soo baxeen madal la baxday kala soo jeedinta oo micnaheedu ay tahay xalka Soomaaliya waxbaan ka leenahay annaga laftigeena inaan tala ka geysan ay tahay weliba Ahlus Sunnah taariikhda waxay nuusinaysaa in gobollo badan dadka horeeyay oo ka horeeyay dadka nabadiidka inay ahaayeen Ahlus Sunnah oo hataa ay ka mid tahay xaafado ka mid ah Muqdisho inay ayaga ka horeeyeen iyadoo dawlad iyo waxba taageero ka heleen maanta waxay noo tahay mid aad farxadeeda in arrinta la soo yimid ay tahay arrin masiiriya oo annagoo dhan noo wada ah mid waajibkaas ayada la haddii marka hore aan jirtay in la isaga yimaado ama la isugu yimaado si siyaabaha ka duwan oo Soomaalida inteeda badan aad u jecesha oo qabaa'il la isugu yimaado oo ama dan hoose ka hadla ama dana gaar ahaaneed ama siyaasad kale laakiin maanta marxaladda aan joogno waa marxalad runtii beeskeeda iyo wanaaggeeda iyo horumarinteeda ay leeyihiin xaruntan oo bilow wanaagsan oo annagana soo gaarsiisay barashada koowaad horaan isugu arganaynaa
maanta aan arkayna in si muuqaal leh oo muglin ay culimmadeena u wada joogaan. maxamed cabdi cismaan maxamed faradheere, Star TV, magaalada Muqdisho.